ayaa qabo mid kale iyo mid kale oo argagixisada ka mid ah ayay naagtiisa tahay aanba ka soo tagno horjoogahaasi ayay u dhaxday una carruur dhashay maxaa kaloo halkan ka jiro tusaale nasteexa muxudiin maxamed 14 jirkeedii ayaa lagu daray horjoogaha faanka miiran kaarigii gawaarida ka rari jiray waqooyiga muqdisho iyo xoogsadihii magacdoonka ahaa yuusuf ciise kaba ku tukaday laakiin ay geedaha ka hoos gasha ayaa aabaheed oo argagixisaa uu ku daray nasteexo odaga aabaheed waa taaroolo hore hadda saduurka ugu jiro baqdin iyo inuu daadiyo dhiigga muslimka aabahay ay ugu diray aabahay ay imaaday wuxuu ku siina nima aqaanin waxna ma barash baasi waxaas ma aan baranin inaan ku siina ayaa dhawaabo waxa dhamay dhaaftaaneen in ma aqaanin meehana leegi widaan meel igiisana mar cidiina nool wada raba hooyaday kale ay geeriyo qabtaa ina hooyaday la adeego u joogaan raba nin hawada waa dhaqan aan raba tooniya sana ay dhameeyay meeshan amal geli rabo markaas aabahay markiis ma la diidi karo ma oo أنا مركز دوك أنفعي وأنفعي شال إنك أراك أنت ما أنت سايق يلا ولا ديك أراك تموت ساسا وبحي أيام مركز جوا فهمي ومركز تقول دجالة وحارب أبي السينة أيوة سكيل جوي شباب وهاي كوا كده كذا هذا كويا كأي معدي ما كويا أوجي كويا جوي بهذيك السنة عبطوي بالملاعب سنة كويا جوي مركز ماشي كنا لا ماشي أنا عدي أنا ولا جري البعض دقنا جري عاشا محمد حسن jabeerideeda ka soo mid hore oo argagixisaha ayaa odaga oo khawaarij ah ku daray hadda samid kale ayay u dhaxdaa mid hore anoo inayso 14 sano jira aabay ku daray markuu ku daray aabbo wakiin ninkan ku keenay ina guursataa rabaa wada hayaade ninka sidoo guursad ya ashabaab ya jamhad loo sidii u guursad ilaa hal wiil oo kasii inuu sideed bilood jira iska furay hadda inuu 2 sano iyo 4 bilood jira intaas dhan hooyaday iyo la noolaa marna inta iimaanay aabe maxamed xasan barisaalla magaca meesha loo yaqaan ismaaciil xasan waa kaas jamhad waayane dadku ku duur ku jirka nimca maxamuud cabdiraxmaan sugule waxay leedahay waaba iiga soo dhamaatay inaan la sii dhaqmo argagixisada laakiin madaxayga xoog la iga haysta waxaase u sii dheer in qaraxyo ka dhacay Hargeysa uu aabaheed ku dhintay ninka Cabdikariin Maxamed Cismaan baa la shaab ah mar dhowna noqday ana waxaan ku guursaday soo macallin dugsiga meel dhaha buu hoodle waxaan ahayd xilli hor 2012 deegaan ahaan kama soo jeedin deegaanka Kismaayo ka soo jeeday oo isaaray wuxuu igeeyay Kismaayo markuu igeeyay wuxuu ku dhahay Puntland soo ku soo karay isku deegaan aan ku soo kornay xaq wax ku bartay isagoo yar baa la keenay buuhoodle wuxuu dhahay waxaan u noqonayaa Puntland waa la qabsan waay Kismaayo wuxuu aaday Boosaaso wuxuu ii sheegay inuu galay jaamacadda Bariga Afrika waana arkay waqado iyo waxaas ay codsi dawladda hoose Puntland ku qoran tahay oo jaamacadda uu ku codsanayo maadaama jaamacadda taabacsan uu ka soo baxay oo buuhoodle ku yaala waqti dheer kadib Kismaayo iska deganaa 3 ciyaal u dhalay dadka dhan way ogyihiin ehelkiisana way ogyihiin ehelkaygana way ogyihiin muddo kadib waqti dhow waxaan maqlay ninku inuu yahay al-shabaab uu joogo buuraha goolis waan ku qabsaday waxaan ku arrintaas lagu sheegay uu igu inkiray nimankaas anaga colaad baa naga dhaxaysay aabahay oo aniga ay dhalay qarax ku dileen waxay ku aadinay 2008 aabba Allah naxariistay odayaal kala nabadoonnay 5 ayaa waxay u joogeen hawlo dacwo oo dad ehel xirxirnaa iyo hawlihii nabadoonnada waxay u joogeen ma garanay xilligaas waa yaraa laakiin waxa la ii sheegay inay dad xirxiran iyo waxa u dacwoonayeen kadibna waxa la ii sheegay ismiidaamin anigu waa joogay Hargeysa markaa qaraxyo waaweyn baa ka dhacay abaar 4 saac subaxnimo 10 subaxnimo markay ahayd aabahay intaas ku nafooy anaka duuganay meedkiisa oo keenay Allah u naxariiso asaga iyo islaam la dhintay reerkayga waan u sheegay arrinta markaan u sheegay waxa la dhahay arrintaas soo xaqiiqadeed ku cadaatan iska soo furnaag ninka iyaga iska furi kartay iska soo furnaag dad shicib aan shalay aabahay dib 18 cunug baan waxaan ku yiraahdaa waa aabahay dhalay Allah u naxariiso anigu waan soo tagay hooyan la saacad ugu tagay kadibna waxaan aaday jilib ninkii maqan baan tagay asana wuxuu soo wareegay meelaha jubooyinka ayaan salaad cabdi ayaa iyana meeshan la taagan sheegasho raqiis ah waxa ahay qof xaas oo magaaladan degan oo ilmo ku haysto oo mudooyin badan xataa laga maartay laga maqnaa oo marmar aadi jirtay sanadaba u dhaxayaan marka ugu dambeysay 1 sano iyo 4 bilood kala maqneen cunugay ugu yar 3 sano jira
marka hadda dhow oo aday muddo laga joogo muxuu ahay 2 bilood oo 20 biro dhiman aan xagga soo joogay waxaan ugu tagay muxuu ahay culays jir darteed inaan ani asaga aan kala tagno maadaama oo waxna aan ku haysan oo ilmahaygan aniga u xamaalnay garab xamaaltay iska ahay oo magaaladan aan ku noolay cabdi cismaan la dhahaa sideeda u dhalay waxaan cabdi cismaan faarax sideed cunuga u dhalay waxna ii nool waxna ii saqiireen ciidamada amniga ee xeebta u galay qabashada gaarigan iyo haweenkan ayay maxkamadda dhageysatay xeer ilaalinta ayaa beenisay marmarsiyada haweenka waxayse maxkamadda ka codsatay in la fuliyo dalabkooda oo ah kow inay iska diiwaan geliyaan haweenka iyo carruurta argagixisada hay-adaha amniga si buuxdana ay ula wadaagaan hay-adaha baarista macluumaadka khawaarijta ay u dhaxayaan ama inaysan ku dhex milmin bulshada ka badqabta dhaqanxumada argagixisada mudan guddoomiye anoo ka faa'iidaysanayo maxkamadda maanta aan hor taaganahay xubnaha xaasaska ah ee shabaab ay qabaan ee magaalada muqdisho ku dhuumaalaysanaya waxaa looga baahan yahay in ay isdiiwaan geliyaan ama hay-adaha amniga ee isku sheegaan ee dhahaan aniga ninkaas ay qabo hadday sheegi lahayn hadda 4 eedeysane mid walba markii la weydiiyey kontaroolka lagu weydiiyey magac beenay sheegatay xog beenana way sheegatay balse kuwa dhuumaalaysanaya weli magaalada muqdisho ku jiro iyo kuwa soo galayaba waxaa laga rabay inay xogta rasmiga sheegaan cid xiri lahayd ma laha baarisaa lagu sameyn lahaa xogta rasmiga oo loo diiwaan gelin lahaa qof walba balse nin walba beenay sheegeen sida ka muuqato eedeysanada afaraad ee caasho la yiraahdo ayadana shabaab ay ka tirsan tahay aabaheedna waa shabaab ninkeedana waa shabaab sidaas awgeed magaciiyo dhan waa wada qaladay balse baaris dheer la sameeyay kadib waxaa la ogaaday magaceeda rasmiga ah iyo xogteeda oo dhammaystiran soo ciddii shabaab ah ama familkeeda ee tahay ama hadday tahay xataa xaas shabaab waxaa laga rabaa inay laamaha amniga u diiwaan geliyaan war ani nin shabaaba ay qabo duurkaasoo ku maqan yahay ka dagaalamaya laakiin ani shabaab ma ihi hay-adaha amniga hay diiwaan geliyaan soo xogtooda waa laga qoraya cid taabanaysa ma laha mudan guddoomiye bacdama aan maxkamadda hor keennay markhaatigii soo qabtay eedeysanayaashan aqoonna u lahaa mid ka mid a eedeysanayaasha bacdama maxkamadda aan hor keennay baarihii galdacwadeedka kaasoo si buuxda u caddeeyey in 4 eedeysane markii la qabtay oo xarunta baarista CID la geeyey ay marin habaabiyeen hay-adihi cadaaladda kana been sheegeen wax ayaga ay yihiin iyo nimankoodii bacdama aan si buuxda u caddeennay in eedeysanayaashan ay qabaan horjoogayaal ka tirsan khawaarijta waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa weliba si xushmad leh uga codsanayaa in ay ku xukunto qodobadii aan ku soo eedeennay maxkamadda waa mahadsantahay qareenka ayaa u sheegay garsoorka inay qasban yihiin haweenkan sidoo kalena ay waajib ku tahay adeecidda nimankooda haba iska ahaadaan argagixiso diinta u qalloocsaday sida u danta ah koonfurtayna Soomaalidu waxay tiraa waa liqaba aqaan way naagta haddii la qabo sax ninkeedii waa qasab waa inay u tagtaa sharciga faraay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri haddii qof bin aadan loo sujuudayo naaga dhihi lahaay ninkaad u sujuud marka naagta haddii la qabo oo la xaqiijiyay qabaasha ay tahay dambe kale ay salahayn waxay ahayd baaristaas iyo eedeedana maanta maxkamadda la hor keena ma ahayn baaris ku filnay ahayd hay-adaha amniga ay u samaystaan dhaqdhaqaaqeeda ay la socdaan ay diiwaan gashadaan si kale in loo wajahay ahayd maadaama wax dambe ah oo lagu soo saaray aysan lahayn maadaama nimankii ay dhibaato sheegteen nimankii qabay ay soo wada tageen ilaa ayaan maahane intii kale ay garoobiin yihiin maanta xafiiska la rabay inay daba galaan ayagaa mas-uulka ah maxaa yeele xafiiska wuxuu mas-uul ka yahay xeer ilaalinta magaceeda agoonta naagaha garoobta ilmaha yaryaroo agoonta curyaamiinta waxaasoo dhan xafiiska xeer ilaalinta mas-uulka ah hadday ogaadeen gabdhihii inay garooba yihiin waxay ahayd inay tixgelin ku sameeyaan xiriirka ay u waxyeelaan ayaga naftooda ay ka dhigtaan silsilid ay u maraan nimankaasii loo heli lahay maxkamadda sharafta leh gabdhahaas maadaama la keenan wax caddeen ah loo keeneen qodobkii loo soo eedeeyey oo lagu soo eedeeyo shabaabnimada ahna ay maxkamadda horteeda ay ka caddaaweysay ayagana ay saqiranan shaqana ay ku laheen musaafiriinna ay ahaayeen
maxkamadda waxaa ka codsanaya khaasatan gabdhahaas in xorriyaddooda la siiyo loo fiiriyo qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maxkamadda sharafta leh waa mahadsanta fadhigan waxaa soo xiray gaashaanle sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhageysiga garbaqalka dhanka ka ahaa eedeysanayaal nasteexo muxudiin maxamed ayaan salaad cabdi xasan nimco maxamuud cabdiraxmaan iyo caasho maxamed xasan bariise intaas ayuu ku dhan yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso fadhi waa noo xiran yahay cabduqaadir ciise warbaahinta qaranka muqdisho